waa mar kale iyo barnaamijkeennii xogside oo aynu kaga hadli doono qaababka kala duwan ee loo kobciyo maskaxda. haddii aad ku cusub tahay ka mid noqo asxaabta janalka. jimicsiga maskaxdu wuxuu noqday dhaqan dunida kusoo kordhay oo muddooyinkan dambe aada loo isticmaalo, waxaana jira tababaro kala duwan iyo barnaamijyo arrintaa ku habboon. maskaxda aadamuhu waa sida jidhka oo kale, waxay u baahan tahay jimicsi iyo tababaro ay ku kobciso xaaladeeda shaqadeeduna ay ku fiicnaato si aanay u daciifin awoodda garasho ee qofku. sida ay ku warantay shabakadda Al-Jazeera, qoraaga Elizabeth Petrova ayaa maqaal ay dhowaan ku qortay shabakad laga leeyahay dalka Ruushka. waxay ku soo bandhigtay habab ay sheegtay inay maskaxdu u noqon karaan jimicsi caawiya iyo inay si habsami leh howlaheeda ay u gudato, kuwaas oo ay ka mid yihiin halxidhaalayaasha maskaxda ka shaqaysiiya, furfurista iyo xal u raadinta halxidhaalayaasha ku dhisan xisaabta ama hadallada maskaxda uga baahan shaqadu. waxay ka mid yihiin jimicsiyada maskaxda bini'aadanka dhisa isla markaana ku tababara dhaqso u fikirka. sidaa awgeed waxaa fiican in qofku maalin kasta 15 daqiiqo ka shaqaysiiyo ama ka shaqeeyo halxidhaalayaal noocan ah. u fiirsigu badanaa wuxuu maskaxda ku abuuraa firfircooni iyo inay u shaqayso si ka duwan sida ay u shaqayso marka aanay shayga fiiro gaara u lahayn. sidaa awgeed inaad arrimaha qaar si xeel dheer uga fiirsato ugana fikirtaa waxay jimicsi u fiican ay u tahay maskaxda. cuntooyinka ay cunaa raadad kala duwan ayaa ay ku yeeshaan maskaxda. sidaa awgeed waxaa waajiba inaad ka dheeraato cuntooyinka caqabada ku noqon kara wareegga dhiigga ama looga cabsado inay xidhaan xididdada dhiigga. waxaa ka mid a cuntooyinka ay ku badan yihiin milixda iyo sokorta. waxaa kale oo ka mid a dhammaan cuntooyinka ay carbohydrate-ka iyo dufanka ay ku jiraan. waxay khubaradu ku taliyaan cuntooyinka noocyada kala duwan ka kooban iyo in kalluunka, beedka, caanaha, badarka, khudradda iyo malabku ay ka mid noqdaan cuntooyinka joogtada ah loo cuno, maadaama oo la ogaaday inay faa'iido leeyihiin maskaxda iyo guud ahaan jidhka. ka sheekaynta sheekooyinku waa nooc ka mid a jimicsiyada maskaxda u baahanta. ku dadaal inaad u sheekayso si qurux badan oo dareenka dadka soo jiidanaysa, si dadka ku dhagaysanaya ay dhugmo ugu yeeshaan hadalkaaga. ku dadaal inaad barato xeeladaha kala duwan ee lagu kasban karo dareenka dhagaysi ee qofka, taasi oo macnaheedu yahay inay sheekada oo keliya aanay ku filayn, balse sida loo warinayo sheekadu ay muhiim tahay. jooji daawashada telefishinadu raad taban ayaa ay ku leeyihiin habsami u shaqaynta maskaxda. sidaa awgeed waxay khubaradu ku taliyaan in la iska joojiyo daawashada badan ee telefishinka. dhis jidhkaaga. jimicsiga jidhku waxa uu sidoo kale dhisaa maskaxda aadamaha, gaar ahaan xusuusta iyo awoodda ay u leedahay dhugmada. waxauu jimicsigu yareeyaa qulubka iyo isla sheekaysiga, waxaana uu wanaajiyaa awoodda dheefsiga. wax akhrisku wuxuu ka mid yahay jimicsiyada maskaxda aadamaha dhisa. waxa uu maskaxda ku quudiyaa xogo iyo warar aanay hore u aqoonin. waxa uu ku dhiirigeliyaa inay u fikirto in ay arrimo kala duwan isu geyso, isuna daydo iswaafajintooda iyo garfayntooda. arrimahaas oo ah qayb yar oo ka mid a faa'iidooyinka wax akhriska ayaa maskaxda ku abuura firfircooni, korna u qaada habsami u socodka ama habsami u shaqaynta maskaxda. xirfado cusub. barashada luuqadaha iyo xirfadaha kala duwan waxay maskaxda u yihiin jimicsi xoojiya awoodeeda xusuusta iyo dhaqso fikirka, isla markaana kobciya dhugmadeeda iyo fariidnimadeeda. caado bedel. in la bedelo caadooyinka, tusaale ahaan inaan jid kaliya maalin kasta la marin ee jidad kala duwan la maro, shaqada iyo guriga loo maro, in albaabka hadba gacan lagu furo iyo guud ahaan in la bedelo caadooyinka nololeed ee kala duwan waxay maskaxda ku abuuraan baraarugsanaan iyo inay yeelato fiiro gaar. intaas ayaynu kusoo koobi doonaa barnaamijkeenii koobnaa ee ka hadlayay hababka loo kobciyo maskaxda. aad baad u mahadsantihiin asxaabta.